shicibka ku nool Soomaaliyeed degmada balad xaawana waxaan soo jeedinaynaa hambalyo iyo bogaadin inta kadib waxaan rabaa erey inaan idhaahdo ereygu waxa weeye Kenya iyo Soomaaliya xuduud bariga ka dhaxaysay oo la isku haystay waxayna ahayd dawladda Soomaaliyeed taarinta dalbaysay oo ah shicibka Soomaaliyeed iyo deegaanka Soomaaliyeed ay ku nool yihiin dawladda Soomaaliyeed baa sheegaysa waxaan ka xunahay 2009 waxaa la sameeyay oo dhaqaaqay oo dawladda ajnabiga la kulahaayeen in badda Soomaaliya la geliyo su'aal oo ah Soomaaliya iyo Kenya inay bad isku haystaan 2009 heshiis baa la saxeexay labada dawladood dhexmaray oo ah waxaan heshiis memorandum of understanding ka baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee Soomaaliya mahadaan ka gaadhay way diideen oo arinta way buriyeen ujeedada marka hadda socota waxa weeye dad cabirkeed xuduudda labada dal ee dhulka ayaa si perpendicular loo cabira kolka arintaas timid Kenya waxay ku yeelanaysaa ma jirto oo bad ay sheeganaysaa oo ay Soomaaliya ka qaadaysaa ma jirto waxaad ogtihiin in maxkamadda Hague hadda ay taalo dacwadii Soomaaliya iyo Kenya ay isku haysteen badda arinta hadda uu senatorku inoo sharaxay macnuhu waxa weeye Kenya xuduudda hadda sida u taala hadii la yiraahdo dadii la cabiro si perpendicular u dhacdo waxay ku helaysaa ma jirto way diidan tahay waxay leedahay heshiiskii ay weli rabtaa oo xuduudan bariga ay sidaa u soo qaloocinayso sidoo inoo sheegay meel badda si perpendicular ay ugu dhacdo wax ku helaysaa iyo raadinaysa taasina ma aha mid aynu aqbali karno oo aynu qaadan karno waxay soo baahan tahay dawladda ama dawlad goboleed ha noqoto ama dawladda dhaxaan noqoto iyo shicibka Soomaaliyeed sida degmada shicibka balad xaawo ay isu taageen in la isu taago oo arinta aan la ogolaan in la leexiyo oo laga raadinayo meel ay kolkaasi Kenya xuduudeedu si toos ah badda la cabirayo ay uga dhacdo waxaan rabaa inaan maanta idin sheego hal shay 1980 waxaa safir inooga ahaa dawladda Scandinavian-ka dawladda Sweden Abdullahi Ciise Maxamed wuxuu la soo heshiiyey shirkad Norwegian oo badda kolka la baarayo waxa weeye adduunka way ugu sidataa sida la inoo sheegay shirkad buu la soo heshiiyey shirkadii way timid Soomaaliya laba survey bay samaysay waa Ras Kamboni ilaa Baraawe ilaa Hobyo labada kolkay samaysay waxay ku noqotay dalkoodii joornaal ay leeyihiin ayay ku soo saareen waxay ku arkeen halkaas waxay sheegeen laba ceel oo baaxadda shidaal ay ku jirta ay ka weyn yihiin Norwegian oo dhan waxa ku jira ayay sheegtay markii arintaas sheegtay waxay noqotay 7 shirkadood waa 3 Mareykan 2 Faransiis mid Ingiriis iyo mid Talyaani waa 3 shirkadood ee Mareykanka waa Chevron Conoco iyo Ameco labada Faransiiskuna waa Total iyo Elvis Britishka Shell iyo Ajabo Talyaaniga dacway keeneen ilaahay ha naxariisto nin la oran jiray Maxamed Cumar Asad oo agaasimaha guud ee wasaaradda macdanta iyo biyaha ayaa warbixintan la siiyay kolka madaxweynuhu u tageen
nimankii oo dacwaha waa loo yeeray agaasimihii guud iyo wasiirkii nimankani kolka intaa sheegeen waxay yidhaahdeen yacni shirkadani maba soo geli karto dalka soomaaliya toddobadaasaa ku haysataa concession ma soo geli kara laba arrimood ayaa meesha kolka wasaaradda dowladda soomaaliya ay ka jeedisay warberi mooye bad weligiinba maydaan baarin waa su-aal waa talabaade intii aad baa 60 sano oo aad baaris ku wadeen beriga soomaaliya weligiinna maydaan odhan meesha waxa ku jira wax ma idaan sheegin hadda shirkadani waa bad waxay yidhaahdeen 89ka sarveygii baan dhammaystiraynaa 90ka waa soo saar anigu cabdi xaashi ahaan waxaan qabaa burburka iyo duminta soomaaliya arrintaa inay ka dambaysay ay daba socoto lees kadib waaban burburni kolkaa arrinta hadda shirkadda Norway arintay samaysay ee baddaasi ayaa arintani hadda ay daba socotaa marka waxaan leeyahay dawladdu iyo baarlamaanka labadiisa aqal oo gudiyada u xil saaran yani arrimahaas iyo xukuumaddu inay u sameeyaan guddi arinta baaristeeda iyo ilaalinteeda ka shaqeeya intaasaan oran lahaa oon kaga baxaya waxaan gelaynaa kalfadhigii labaad ee aqalkan soo socday intiisa badan anigu waan idinka maqnaa waan idinka mahad celinayaa hawlihii aad qabateen guud ahaan waan idinka mahad celinayaa waxaana weeye aqalka maanta waan xiranaynaa laakiin xafladaad tidhaahdeen waa la qabanayaa ayaa inoo dambaysaan filaya warbixinta guud ee aqalka habeenka ama galabta aad arrintaa samaynaysaan ayay noqonaysaa in laydiin qaybiyo gudoomiye ku-xigeenka koowaadna waa idiin akhriyi doonaa aniga waa idiin sheegayaa hadalkan hadda intan aan hadlaya waxa iga keenay dareenuune hadal badan aniga 3 bilood dhakhtarkii wuxuu iga mamnuucay 3 bilood inaan hadal badan sameeyo intuu iga mamnuucay laakiin arrintan haddaan maanta idinkala hadlay waa arrin aan dareenkeeda si xoog la u qabo oo ay tahay dalkeenna badiyo berri iyo hawada sidaynu u difaacan lahayn soomaali oo mid ah sidaynu u difaacan lahayn ayaa ereyga keenay waxaan rabaa aan odanayaa aqalku kalfadhigii labaad waa inoo xiran yahay intaasaan kaga harayaa aad iyo aad ayaad mahadsantihiin waad mahadsantihiin aqalkuna waa inoo xiran yahay